dhowr kulan kadib inkastoo ciyaartooyda kale ay la yaabeen sida uu Kante u aamusan yahay iyo markii xitaa uu yiri waan ordi karaa subax kaste halkii uu gaari u raaci lahaa tababarka kaliya dhowr kulan gudahood Claudio Ranieri ayaa u wacay Wallis isaga oo kule Steve mar dambe ha ay dhageysan anigu ma aqaan waxaan ka hadlayo markii la gaaray 2016kiina waxaan suuragal ahayn ayaa dhacay dhammaan waan ognahay sheekadaas Leicester City waxay haysteen fursad 5 hal ah inay ku guuleysan karaan horyaalka Premier League koox ka baxsan waxa loo yaqaan top 6kana laguma arag inay qaado horyaalka tan iyo bilowgii Premier League hayeeshee si lama filaan ah ayay taasi u sameysay dad badani waxay ugu yeereen inay tani tahay mucjiso laakiin aan ku sheego tirooyin kale si aad u fahanto sababta runta ah inaysan ahayn mucjiso xil ciyaareedkaas N'Golo Kante waxa uu sameeyay 175 tackle waa in 31 ka badan ciyaaryahan kaste oo kale oo horyaalka ah sidoo kale 157 interception waana in ka badan 15 jeer qof kasta oo kale haddii labadaasi tiro la isku darana mar kale waxa uu noqday ciyaaryahanka Yurub ee ugu badan oo kubadda soo ceshada waxay ahayd arrin dhab ah markii Sir Alex Ferguson uu bartamay xil ciyaareedka yiri Kante waa ciyaaryahanka ugu fiican horyaalka si aadana uga fiican kuwa kale dhammaadkii xil ciyaareedkaasi waxa uu noqday ciyaaryahanka sanadka ee kooxda Leicester ee horyaalka qaaday ciyaaryahanka cusub ee ugu fiican horyaalka Premier League iyo xiddi ka mid ah safki ugu fiicnaa xil ciyaareedka iyadoo sidoo kale xulka Faransiisku ay uga yeereen Euro 2016 kulankiisii ugu horeeyay ee Euro 2016na N'Golo Kante waxa uu hogaaminayay xiddigaha Faransiiska dhinaca baasyada taakallada masaafada la orday iyo kubadaha lala soo haray waxaana uu caawiyay goolkii guusha laakiin nasiib darro markii uu qaatay kaarka jaalaha ee labaad waxa uu ganax ku seegay quarter finalkii waxaana lagu bedelay ciyaartooy kale Faransiiskuna ugu dambeyntii si lama filaan ayay ku waayeen finalkaasi inkastoo ay jirtay wixii uu ku arkay tababara Didier Deschamps haddana waxaa sidoo kale arkay dhammaan kooxaha waaweyn ee Yurub PSG Barcelona Man City Arsenal iyo Chelsea ayaa dhammaantood xiiseynayay laakiin ugu dambeyn waxa isugu soo haray laba kooxood mid ka midna waxay ahayd Arsenal waxa ay diiday inay bixiso 10 milyan oo lacagta wakiilka ah waxayna doorteen Xhaka taas beddelkeedana waxay fursad siisay kooxda Chelsea waxa iyaduna muhiim ahayd in ninkan uu Frankie Lampard ugu yeeray kubad sameeyaha ugu fiican adduunka uuna hadda ku biiray mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan Yurub waana waqtigii uu dunida qabsan lahaa isaga oo xirtay lambarka 7 inkastoo uu ka ciyaari jiray kubad joojiyaha qadka dhexe ninkan dad badani waa ay garan waayeen booskiisa saxda ah haddana si cajiib ah ayuu ugu haboonaaday kooxda hal sano oo kaliya kadibna kooxdii ku dhamaysatay kaalinta 10aad si lama filaan ayay ugu guuleysteen horyaalka Premier League